kulanti habboon daawadayaal barnaamijkan waxaynu kusoo koobaynaa waxaynu ka eegnaa muxuu yahay dhaqanka cusub ee laga bartay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool sanadii 2023 dhaqankaas oo Soomaalida inteeda kalena ku faafay dhaqanka oo buunbuuninayo amaba uu u yahay saldhig baraha bulshada oo dadku si khaldan u adeegsadaan. sidoo kale waxaan tilmaami doonaa dadka baraha bulshada adeegsada iyagana dhaqanka faafiya ama waxyaalaha la xiriira ee sida qabyaaladda iyo faanka iyo ku buunbuuniya baraha bulshada meel kasta ha joogeen. haddaba intaan barnaamijka u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid lana wadaagtid saaxiibada muuqaalka leegna aad saatid wixii faallaa iyo fakar inaad noogu reebtid qaybta faallada. mahadsanid. si guud dagaalka waxaa laga bartaa meel kastoo dagaal ka dhaco wuxuu reebaa waxyaalo xun. dagaalkana waxaa laga bartaa wax kasta oo xun wuxuu doonaba ha ahaadee. dhaqankaas haddaba waxa weeye oo dhaqanka in la duubo dagaalada ama ciidamo ha ahaadeen ama dagaal toosa ha ahaadeene. dhaqankaas waad mood inuu Soomaalida inteeda kale aysan aad u aqoon maadaama tiknoolajiyadan iyo mooladan cusub ee si wax u duubayaana ay faafinayaan iyo internetkan ay aad u faafinayaan. hase haddii waxaad moodaa in aan markii hore loogu baraarugsanayn kadib muuqaallo baraha bulshada aad u galay oo dagaaladaas ka dhashay ayaad moodaa Soomaalida inteeda kale inay dhaqankiis kaga dayatay kaas oo Soomaalida meel kasta joogtaba meel kasta ama dagaal ama wax ka dhaco ama wax yar ka dhaco in la duubo. guud ahaan iyadoo baraha bulshada Soomaalidu ay khalad ka fahantay waxayna u isticmaasho waxyaalo khaldan oo fara badan hadday ahaan lahayd qabyaalad, hadday ahaan lahayd dhaqan xumo, hadday ahaan lahayd sumcad xumo kale oo fara badan iyadoo aan laga fiirsanayn oo wax kasta la duubayo. hase ahaatee waxaad moodaa qodobkaas inuu muuqaalada baraha bulshada ku baahay ee dagaalada laga duubay maadaama dad shacaba oo dhalinyaro u badan ay dagaalka ku jireen ayna muuqaalada duubeen aysan ahayn laba ciidan oo toos oo dhisan aysan meesha iskaga hor iman. muuqaalada kadibna ay baraha bulshada ku faafeen Soomaalida inteeda kalena ay iskaga dayatay aadna moodaa dhaqan haddeer aad u faafay inuu yahay. inkastaan isleeyahay fariintan amaba qodobkan waad la soo habsaantay ee xilligeedii kumaad beegin. hase haddee maadaama uu yahay dhaqan la iska bartay maalin kasta oo wax dhacaana ay dhici karto in niyadda lagu hayo halkiina laga sii wado. waxaa muhiima in bulshada loo tilmaamo lana wadaago waxa ka dhalanaya iyo cawaaqib xumada uu reebayo. haddaba muxuu keenayaa in dhaqankaas aan tilmaanay wuxuu keenayaa kow cadaawad maadaama uu duuban yahay oo jiilba jiil ka dambeeya. haddii aan baraha bulshada iyo internetkani ka bixin iyo tiknoolajiyadani aysan hawada ka bixin waxaa suurtagala in jiilba jiil ka dambeeya uu daawado oo waxyaalihii dhacay ee la duubay foosha xumaa ay bulshada inteeda kale ama jiilasha ka dambeeya ay daawadaan. taas oo ku keeni karta cadaawad bulshada weligeed aan ka dhex bixin. laba wuxuu kana keeni karaa suura xumayn iyo in sawir xun ka faafo ama ka baaho Soomaalida iyadoo Soomaalidu siyaasad ahaan iyo mowqif ahaan ay aad u kala tagsan tahay muddooyinkii u dambeeyey sanadihii u dambeeyey. dagaalada iyo muuqaalada foosha xuna ay baraha bulshada u galaan waxay ka qaadanayaa dunida ka qaadanaysaa sawir fool xun kaas oo dowladnimada Soomaalida iyo jiritaanka Soomaalidana halis ku ah. saddex wuxuu kaloo keenayaa biimo nafsiya oo qofku inuu naftiisa halligo
taasoo keenaysa isagoo dadkii ay awalba ku jireen. Bal ka waran qof xabad ku jira ama xabad uusan arkin oo ay si u dhacso sida roobka rasaastu muuqaal duubaya ama leef ku jira oo toos loogala socdo dunida, iyadoo wax kasta ku dhici karaan maadaama uu qof dagaal ku jira uu yahay. haddana uu leef ku jiro, waxa ku keeni kara ama isbeddelka ku imaan kara uusan qiyaasi karin. Muuqaalkana uusan haysan oo uu dunida toos loogala socdo, uusan hadhow kala reebi karin. In badanoo ka midana waad aragteen si dagaaladii ugu dambeeyey hawd ka dhacay wixii ka dhashay iyo muuqaaladii ka faafay ee baraha bulshada usbuucyada la isla wareegayay, taasoo aad ku arkayseen muuqaalo toos iyadoo loo duubayo ama dad xabadii ay toos ugu dhacso, iyadoo dadkii duubayaana ay garab ordayaan naftana xilli ay kugu samayso aadan aqoon. Waxaa kaloo aan sidoo kale dhaqanka aad u buunbuuninaya oo faafinaya dadka baraha bulshada ka faana meel kasta ay ka joogaan. Faanku Soomaalidii hore dhaqan uma aysan lahayn, kumana badnayn in la isugu faano tiraab ahaan ama hadal ahaan la isugu faano. Waxaa dhici jirtay in la isugu faano tix la isugu faano ama suugaanta la isugu faano oo dhici jirtay, waana ka qurux badan tahay haddii suugaanta la isugu faano iyo haddii la isugu faano hadal caadi ah. Waxaana dhici karta haddii suugaan la isugu faano in qofkii suugaan kaga soo jawaabo oo wax badan oo laaxina uusan keenin, ama laga faa'iido xigmad. Hase haddii hadal la isugu faano, waxaa intaa keeni karaya hadal xumo iyo af xumo unbay sii siyaadinaysaa. Wax cilmiya oo la kala kororsanayaana ma soo keenayso. Dadkaas meel kastaba ha joogaane waa dadkan baraha bulshada ka faana, reer hebel iyo reer hebel isugu faana, iyadoo guud ahaan baraha bulshadu dhibaatooyinka uu ku hayo Soomaalida iyo heerka uu marayo ama ina marsiinayo ama qabyaaladii heerka uu marinayo aad la socotaan. Taasoo caalamku haddii la yaaban yihiin. Barnaamijka hore saan kula wadaagay waxyaalaha wargeysyada ka qoreen iyo Soomaalida tan TikTok-ta isaga faanaysa reer hebel iyo reer hebel ku haysa sida ay dunidu ula yaaban tahay. In badanoo dadka ka mid ah aysan ku baraarugsanayn ama aysan aqoon iyo cilmi kale aysan hayn, ee dad iska qaylinaya oo xigmad iyo aqoontoon ahayn ay yihiin intooda badan. Iyadana waad ka wada dhageysantihiin. Barnaamijyo badan ayaan ku tilmaami doonaa soo wadnaa haddii Alla idmo, saamaynta baraha bulshada uu ku yeeshay bulshada inagoo meelo kala duwan ka eegi doona. Barnaamijka intaas ayaynu kusoo koobi doonaa.